بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلنيرت قيمها iyo qadarinta mudan ee igula jirta fieldiga networking ka ama Cisco networking ka waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo iskuulkeeni ahaa Awdal Institute of Networking labadaba marka aad ayaan idin salaamayaa waanad ku mahadsantiin codsiga aad iga soo codsateen in VPN tutorial idin sameeyo site to site VPN marka waxaan sameynaynaa site to site VPN haddii ilaahay yiraahdo inkastoo xilli dambe ay tahay aniga 12 bartii haddana idinka ayaan idin qaari kari waaya codsigiina aad tiraadeen VPN ka na tusira loo configure gareeyo marka VPN kiman guda galayna haddii ilaahay yiraahdo marka hadalku inta inaga eekaado mar waa kan yani Awdal Institute of Networking kusoo dhawaada iskuulkan hore waxaa loo oran jiray Awdal College of Communication marka sabab dartood waxa ila qurux badnaaday marka waxyaalo badan xeeriyay magacan isaga ah ee Awdal Institute of Networking marka waad mahadsantihiin sida wala socda commentigana dee soo qora si aan maaragtay waxaad rabtaan idin ku soo galiyo aad ma aragtay aadna waad u mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga ahayd ee videoyada daawatay maanta waxaan like-na sameeyo like-na ku dhifta comment fiican commentina inoo qora haddii ilaahay ila waa mahadsantihiin maanta waxaan guda galaynaa haddii ilaahay yiraahdo caawa ama maanta site to site VPN configuration ayaan guda galaynaa halkan waxaan dhigay dhowr eray ayaan dhigay on bullet point u sameeyay erayada qaarkood waxa weeyaan ka ugu horeeya to configure VPN you need to be very careful marka aad VPN configure gareynayso aad taxadarkaaga u bari haddii aad taxadarkaagu boqolkiiba noqon waayo any little mistake can cause VPN to fail wax yar كوما حتى هنقطة VPN كلية هدي أتكتبتو تصال هم بنورا كوما ما هنا لكن واحد كوما واحد سيد كوما يعني واحد سيمبلا VPN مكوما شقين يسوي واحد سعادات سميسي إن وليبه إن مقارنة configuration كأن إذا تصياي إن وحويان هذا يوبدن يهاي also the config that I'm about to show you is a lot of managers ما قرأت هذا يوبدن يهاي therefore سيدا درتيد please pay attention please pay a close attention إذنكم هاتان واحد حوق ما قرأنيسا أو يعني مثلا attention في عنكو دعوة سي أدو فهمتان configuration كا صور كنوا صور كيجي مركز صلاة ولا صلاة انت نني أرجي صور كيجا ما انت هلا كأرك واحد وانا ندور الجوجنا صحاب تيدين هو قربها جوجا يكون ودك جوجنا أد بنور سلامي أنا جعله okay وايه halkan aan soo galayna waxaan dhig VPN tutorial ayaan nidhi waa yani tutorial VPN ka sameeyna waxaan nidhi okay as almost everyone knows yani sida uu qof walba og yahay oo networking fieldiga ku dhex jiro oo ka shaqeeya yani networking fieldiga ama dhigta network ma garanaysa networking-ka VPN to ama virtual private network way VPN waxa loo soo gaabiyay virtual private network sub imika idin qoraya waxa loo soo gaabiyay virtual private networking virtual private network ayaa loo soo gaabiyay ma garateen taas ayaa loo soo gaabiyay marka waa virtual private network ayaa loo soo gaabiyay is a part wuxuu qayb ka yahay of security curriculum security-ga ama security-ga ayaa lagu dhigtaa ee laguma dhigto ma garanaysaa networking-ka kale laakiin I'm doing for the sake of you anigu dartiin ayaan u sameynayaa maadaama oon codsi badan ay ardaydeedu ii soo direen ay yiraahdeen fadlan noo samee tutorialkaas ma garatay waxaan markaa tutorialka waan galaynaa marka hadda caawa waxaan ka shaqeynaynaa oo magaranaysa VPN waxay leedahay afar face iyay leedahay ama afar ma garanaysaa qaybood ayay leedahay
okay qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa crypto ISA camping policy ayaa la yidhaahdaa waad arki doontaan qaybta labaadina waa waxaa la identify garaynayaa keyga ayaa la identify garaynayaa oo yani masalan la odhan doono keyga ay ku wada shaqaynayaan labada VPN ku yani labada oo site to site VPN moogta ka saddexaadina waa IPsec waxaa la yidhahdaa internet protocol security ayaa la yidhaahdaa marka isagana waan eegi doonaa haddii la yidhaha caaw ka shanaadina ka afraadina waxa weye crypto map ayaa la yidhaha saddexdaas iyay isku soo ururisaa oo maad aragtaay ay magaranaysaa crypto magaranaysaa mapku saddexdaas oo la isku soo ururiyey weeyaan marka micnaheedu waxa weeye iyada isku soo wada ururiso oo encompasses it encompasses waxa isku soo ururisaa magaranaysaa the whole three above kadibna waxay ka dhigtaa magaranaysaa one good magaranaysaa bundling amaba de way iyagoo ku shaqaysaa magaran waan arki doonaa haddii ilaha yidhaha there's waxaa jira another technology kale oo la yidhaahdo GRE tunnel waa generic routing encapsulation baa la yidhaahdaa tunnel which taasoo has some security vulnerability security yani taas waxay u nugushahay ama u jilicsan tahay security waxay leedahay vulnerability ama security ayay u nugushahay ama u jilicsan tahay but laakiin waxay support garaysaa IPsec internet protocol security ayay support garaysaa to enhance si ay u xoojiyo the tunnel GRE waa tunnel sida magaca ku cad ama ku qoran aad arkaysaan but laakiin isaanada day lesson waa maalin kale yaan cashirkayga u geli doona haddii ilaha yidhaahdo marka imikana let us dive into ama garanaysaa aan xooga aan u gallo VPN configurationka aan gallo ila socda anigana de wadaagtiina magacayga oo waxaa la yidhahdaa de waa engineer Saciid ma garatay Cabdullaahi Kayaad waa kaas magacayga haddaad doonaysaan waa aniga iminka idiin qoray ma garatay marka sidaa kusoo dhawaada walaalayaal okay magaca abadaan ku sheegtay okay kaasi waa kaas waayahay topology-gan aan ka shaqeynaynaa maanta caawa topology-gan ayaan caawa ku shaqeynaynaa markaa topology-gan aad ila ogaanaysaan haddii ilaahay yidhaahdo aan ku wada shaqeynaynaa okay marka waxa weeye waa hub and spoke topology waa frame relay network sida aad u wada jeedaan hub and spoke topology weeye labadani marka waxa weeyaan maad aragtaay hub and spoke topology weeyaan marka waxa weeyaan saddexdan router ayaan magaranaysaa ku samayn doonaa labadaas spoke 1 iyo spoke 2 ayaan ku samayn doonaa magaranaysaa site to site VPN-ka labadaas aan maanta isticmaalayna hubka iyo spoke 1 marka maxaan sameynayaa marka ugu horeysa waxaan tagayaa hubka waxaan oranayaa show IP interface brief do show man ka baxna tan show IP interface brief soo leeyahay saad wada arkaysid ma garanaysaa waxa uu leeyahay 10.0.0.1 marka bal inuu neighborkiisa kala gaari karaan eegaya oo tuuga ah waa gaaraya neighborkiisa kala wanka isaga one sorry isagu frame relay-gana sidaad u wada ogtihiin isagu isma biin gareeyo laakiin neighborkiisu biin gareeya marka waxaan sameeyay qalad isaga ayaan isbiin gareysiyay neighborkiisu waa 3 saad u wada joogtaan waa kaas biin gareynaya shantii na siiyay neighborku waa kaas waa 3 waa spoke 2 oo 3 buu wataa waa kan dot 3 spoke 1 kuna dot 2 buu wataa kana dot 1 ayuu wataa habku marka wuxuu inoo diiday markii hore waxaan biin gareeyay dot 1 saa ula socda show frame relay map haddaan sidaa idhaahdo kuma magaranaysaa it doesn't hurt you marka ama frame relay mapkaygi waa ifi waa ii dan yahay waa static broadcast keyword kaliya ayaa iga maqan halkaas halkaa cilad baa ku jirta oo broadcast keyword laakiin waa inoogu shaqeynaya VPN site to site-ka waa inoogu shaqeynaya haddii ilaahay yidhaahdo marka laakiin waxaa maqan magaranaysaa frame relay-ga cilad ayaa ku jirta looguna talagalay in laga saarana la rabo kan kalena aan fiiriyo isagana magaranaysa speed 1-ka isaga waa ka 2 buu wataa bal inuu 1-ka biin garayn karo ma garanaysaa had iyo jeer ma garanaysaa waa ka 1-ka isaga biin garaynaya 3-gana uu biin garaynaya ma garata
marka we are good, we have a connectivity a layer 3 connectivity waan haynaa marka aan galno madaragtay in VPN key marka VPN ku waa kan global config aad tagaysaa waxaad leedahay global config markaad tagto ayaa odhanaysaa crypto then follow saas aad odhanaysaa yani masalan waxaad isticmaalaysaa haddaad rabtid ma garanaysaa calaamada su-aasha ama question markaa isticmaalaysaa marka inaga taan u baahannahay waa tan waxa weeyaan waa crypto isacam kaasaan u baahannahay isacam policy ayaan u baahannahay isaga commandigaaga waad isticmaalaysaa crypto isacam policy wataas policy kadib priority number bay leedahay 1 ilaa iyo 10,000 oo priority number ah marka priority waa iska random 1 baad ka dhigi kartaa 2 baad ka dhigi kartaa 3 ayaad ka dhigi kartaan facekii ugu horeeyay ayaan iminka hadda ka shaqeynayna sida ula socda saa halka kusoo sheego anaga inay faceka ugu horeeya waa crypto isacam policy marka kii ayaan ku jirnaa waa kaas crypto isacam policy marka waxaan iska odhanaya maanta 100 baa aniga iska odhanaya question markaan isticmaalaynaa wax maaragtay waa CR tan waxay ka dhigantaa waa create iyo waa legal command marka enter ayaan leenahay waa enter buu leeyahay option kale ma lihin markaan intaan nidhaahno kadib maxaad sameynaynaa in calaamada su'aal baad iska isticmaalaysaa maaragtay calaamada su-aasha markaa isticmaasho in ma garanaysaa gurubyada kale ka hooseeya ayaan sameynaynaa marka waxa weeyaan in by default haddaad tidhahdid ma garanaysaa in what they call in by default in isacam ama ma garanaysaa crypto isacam policy in waa on oo way jirtaa marka default waa enabled way default ereygaas ayaan raadinaya waa by default waa enabled ama routerka enable ayay ku tahay hadduu capable u yahay inuu ma garanaysaa rangareeyo ma garanaysaa iOS ka version-keeda oo ma garanaysaa oo capable u yahay inuu rangareeyo ma garanaysaa in ma garanaysaa VPN ta laakiin iOS-yada oo dhan ma wada support gareeyaan marka please waxaad raadsataan 12.4 raadsada si aad ugu configure gareysaan oo idinku support gareyso waayo markaan sidaan nidhi haddaan idhaahno iminka do show waad ogtihiin markaad globalka mode-ka markaad joogto do baad ka horreysiinaysaa showga do show ma garanaysaa crypto isacam policy haddaan idhaahdo waa kan ma garata tii asalka ahayd tii ma garanaysaa defaultiga ahayd waa taa hoose waa suudka waa samaysan yahay laakiin waxa ma configure garaysana laakiin way kutusaysaa inay jirto tanina waa tan kaliya imika waxaan sameynay oo kaliya hatay ma garanaysaa IKA waa internetka ma garanaysaa key exchange ayaa la yidhahdaa internet key exchange ayaa la yidhahdaa marka waa kaas marka just waa idin sheegaa markaan facekii horaan sameynay calaamada su-aal baad ka samaysanaysaa intaas ayaan configure gareynaynaa authentic horta inta aynaan gelin buggeena raacno maxaan idhi mar labaadka identify keyga ayaad identify gareynaysaa ayaan idhimaa keygii baan configure gareynaa inka maxaan soo sameynay oo keliya hadda ila socda keliya waxaan soo configure gareynay hadda crypto isacam policy ayaan sameynay marka keygii ayaan identify gareynaa ila socda marka maxaan odhanaynaa kanaan ka baxaynaa global mode baan tagaynaa in waxaan odhanaynaa marka crypto IPsec key crypto IPsec isacam crypto IPsec okay crypto isacam yes crypto waxaan leenahay isacam kadib key waa ka inasiiyey keygii maaragta crypto isacam key then key 0 waa unencrypted password waa unencrypted password saad u wada socotaan unencrypted password will follow 6na waa specified an encrypted password will follow marka inagu unencrypted kaas ka qaadanaynaa marka key waxaan odhanaynaa CCNP waa fiilka waa certificate-ka ama shahaadada hadda aan haysto weeyaan marka maxaa kasii dambeeya marka muxuu rabaa uu ku diiday haye muxuu leeyahay 0 samee haye kadib waa ka weerkaan sameynaynaa CCNP
markaasaan idhaahno wuxuu ku odhanayaa addresskaasi waa kee waa addresska kama garanaysaa in neighborka waa peer address peerku waa maxay waa routerka kale isaga ku xidhan peer ip address marka maadaama kani haabkii yahay oo isagu oo .1 ku xidhan yahay ama halkan topology-gan oo haabkii isagu .1 oo ku xidhan yahay kanaan ku ma garanaysaa aan leenahay aan VPN-ka labadoodaasaan site to site VPN ku configure garaynaynaa marka waxaan sameynaynaa isaga ayaan maad aragtay two baan siinaynaa kan because maadaama ka ay two yahay may garatay IP address 10.0.0.2 kadibna bes wax kale uma baahni marka ma subnet iyo marka wuxuu option kan ABC oo subnet mask ah ma garanaysaa no ex auth kaas mise waa create baan iska odhanaynaa uma baahni wax kale okay calaamad halkan noo socdo kii labaadna waan configure garayna kaa saddexaad baa markaa haddana inkaan guuragalaynaa IP sector may garatay good waxaan leenahay crypto IPsec okay calaamad tusaal baa iska isticmaalaysaa haddaad hore u arki weyday haddaad yani horey aad uga ma garanaysaa in aad u jeclaan weydo aad yani مثلا hore u arki weyday commandiga aad rabtay crypto IPsec ma heshan transform no crypto IPsec crypto haye crypto halkaas ka eegada crypto isacam crypto call crypto key string crypto key crypto somali sama crypto isacam haddana haye crypto isacam markaad saa tidhaahdo ma helaysa yani idinkaa tusaya moogta optionadiina ma garata crypto markaa inagu waxaan isticmaalaynaa iminka crypto IPsec markaan isticmaalay IPsec option muxuuna siiyey client uma jeedno isaga DFP uma jeedno fragmentationka ma rabno optionalka ma rabno securitization ma rabno transform baan rabnaa transform set where alka marka transform set kadibna muxuu leeyahay waa word oo transform set haddana advance marka transform set then waa inaan qornaa marka kani isaga haaba soo maaha haab haye transform ama waqtigaas waa weynata haab transform haye aan su'aal buu ku waqsinayaa maxaan markaa isticmaalaynaa okay waxaan isticmaalaynaa ma garanaysaa waan u soo noqon doonaa taas xabadii horeysa ma create garaynay afar baa ka hooseysa waan usoo laabanaynaa markaa laakiin halkaas ayaan soconaa ee la socda marka transform ama iska iminka iskaba dhaafitaan kan sameynaa waxaa leenahay iyadii dhamaystirna isacam okay policy 101 desomain kadibna focus marka waxaa leenahay authentication maxaan siinayaa pre-shared key authentication waa magartahay waa keygii ay ku wada hadli lahaayeen hadda aan sameynay ee CCNP-ga ahaa iyo ahaa moogtahay marka authentication RSA oo encryption ah mise RSA signature sidaad wada ogsoontiin pre-shared ayaan iska qadaynaa inagu go that way pre-shared no other option marka enter bayaan leenahay good maxaa kaloo inoogu xigay default-ga ood ka dhaafaysaa ma rabno encryption-kaan rabnaa encryption-ka ayaan rabnaa encryption triple DES oo ah ma garanaysaa waa 3 key triple saddex key oo yani hal mar isku bedelayo AES iyo DES triple kaasaan qaleynaa because kaasaa inoogu fiican marka option kale ma jiro isagana enter ayaa leedahay option kale ma jiro okay maxaa kaloo inoo yaalay halkan encryption group okay group kana maxaa odhanaynaa group 1 2 iyo 5 saddexda group ayaa jira oo David Hellman la yiraahdo marka we will go with one ku isagu waa by default 2 baan iska tagaynaa marka kuwan haddaan ku soo celiyo isaguna option kale ma jiro halkaas waa ujeedaan bay ilaatahay marka enter okay maxaa marka inoo yaala maxaan soo sameynay groupka waan soo gaadhnay hashka ayaan isagana isticmaalay waxaan leenahay hashka muxuu na siinayaa MD5 iyo SHA
markaan iska isticmaalayna MD5 MD5 ayaan aad u naqaanaa soo maaha encryption hashkiina waa MD5 okay maxaa ka noo hada lifetime be careful halkaas ereg aniga waa halka waa iragaadiyay ma ogtahay lifetime kaasi lifetime ka waxa way set a lifetime for the ISACAMP for ISACAMP Security Association iyo lagu marka in lifetime kaas waxaad iska ilaalisaan inaad lifetime ka default ku daysaan oo sida iskaga daysaan waa okay haddii aad laakiin doontaan inaad lifetime ka bedeshaan which is maaragtay in lifetime ku uu yahay kaadi waa lifetime ku day by default lifetime ku by default waa 60 second ilaa iyo 6,800 oo second iyo lifetime in second dis haddaad by default ku daysaan waa fine way idin shaqeynaya haddaad laakiin doontaan inaad samtuun inaad samaysaan ma garanaysa default-ga ma garanaysa aad wax ka bedeshaan yaa misalan aad default-ga aad nacdaan oo tiraadaan waxaan doonaynaa inuu 300 second iyo 200 millisecond iyo 200 second inaan ka dhigna aad rabtaan ama 30 second baan ka dhigna aad rabtaan waan ka dhigaynaa haddaad tiraahdaan because maadaama isagii 60 ka bilaabanayo waxaad samaysaan ama 300 millisecond baan ka dhigaynaa millisecond dis xitaa waa leeyahay inaan ka dhignaa doonaynaa haddaad tiraahdaan ka dhigtaan wuxuu meesha keenayaa ma taqaanaan haddii uu kan waxaa la yidhaahdaa initiator hubku waa initiator because isaga ayaan imika hor configure garaynayna waxaa la yidhaha initiator hadduu marka initiatorkaasi ma garanaysaa oo kan la bilaabayo negotiationka markaan kan inka soo dhamayno kan aan soo geli doona negotiationka la bilaabayo haddii aw lifetime-kiisu ay waa inuu ama isla waa inuu lifetime-ka kani ay isku mid noqdaan isla ekaadaan oo isku mid noqdaan hadduu kan 500 millisecond iyo kan 500 millisecond hadduu kan 200 second iyo kan 200 second haddii kale waa inuu kan ka yaraada taa keliya buu ku shaqeynaya way halkan hadduu inka millisecond hadduu inka halkan 100 second aad tiri halkan aad tiraado 50 second sorry halkan aad tiraado 300 oo second halkan aad tiraado 200 oo second sorry halkan aad tiraado 400 oo second waa fikir yar wareersan moogta halkan haddaad tiraado 400 oo second kana aad tiraahdo 200 oo second iskuma ka shaqeynayaan sababta isku ka shaqeynaya waxa weeye initiator-ku waa in ay ma garanaysaa lifetime-ku oo ma garanaysaa ama aw kan oo peer-ka la bilaabayo negotiation-ku ama aw ka yaraado lifetime-ka kan ama aw la mid noqdo yuuna kani badan kanina yaraanin ma fahamtay marka saa ula socdo lifetime-ka see loo bedelayna waa sidaa maxaa odhanaysaa ma garanaysaa exit baan odhanaynaa isaga ay noo hadhay moogta qaybtan xaggan marka maxaa odhanaysaa exit marka maxaa odhanaynaa lifetime-ka marka maxaa odhanaynaa crypto IBSEC Security Association ayaa la yidhaha amaba aan calaamatu su-aalki ama question magaan isticmaala crypto then saasaan odhanaynaa marka crypto IBSEC ayaan soo qaadanaynaa crypto oo ah IBSEC oo ah configure IBSEC policy marka crypto IBSEC haddana calaamatu su-aal ayaan siinaynaa waa ka Security Association kuwa ka Security Association soo qaadanaynaa markaas waa kaas lifetime-ka saasa halkaasaad ka qaadanaysaa Security Association lifetime saasaa loo bedelaa marka kilobyte-na waa leedahay oo volume based key duration iyo second sorry ma millisecond baan idhi marka hore waa kilobytes ayay leedahay walaalayaal kilobytes ayay leedahay haddaan idhi millisecond iga raalli ahaada qofka markuu wax dhigayo ereyadu waxoogaa waa iskaga darsamaan mararka qaarkoodi marka waa seconds iyo marka iyo ma garanaysaa kilobytes ayay leedahay marka haddii aad inaad bedeshaa rabtid waa crypto IBSEC Security Association lifetime si aan u tagnayna dawaad garanaysaa lifetime marka lifetime-kiina waa kaas waa kilobyte iyo seconds time page marka maxaa odhanayaa okay seconds baan haddaan qoro inaan bedelo aan damaco marka maxaa odhanayaa 120 ayaa ugu yar ilaa iyo 46,400 marka kan waxaan odhanaynaa 200 oo second siaan ka kale ilaa waa initiator-kii waa hubkii moogta kan waa hubkii moog ka 200 baan nidhi kan waa inaan 100 nidhahnaa waa inuu kan ka yaraado mar walba yuuna ka badan kaa marka option kale male waa CR marka enter okay kan markaan sidaa sameynay maxaa inoo dhiman
waxaa inoo dhiman access list waa inoo dhiman yahay crypto halkan sorry raalli ahaada ya optionka shanaad aan ku darayna wuxuu ahaa access list oo ah oo la yidhaahdo magaranaysaa ama extended access list okay ama access list extended whatever extended access list third marka extended access list na extended access list ayna waa ku darayna molt intaan noo soo garanayo marka extended access list iyo waxaa inoo dhiman marka halkan tixraacayna extended access list iyo waxaa inoo dhiman iyo crypto mapka labadaas hadda inoo dhiman iyo de kanan ku laabana de magaranaysa IPsec magaranaysa sorry kaas waan dhamayna facekaas waa inaga dhamaaday security association kii oo waxaan waa badan tahay haddii defaultgeyga magaranaysa lifetime-kii inaan soo gaabiyaan rabay laakiin way bay nala baratay lifetime-kana waan bedelnay soo maahayn marka lifetime-kiina ku magaranaysa lifetime-kiina waan bedelay marka waa lixdaas baad actually iska eegaysaa laakiin waxaa ugu muhiimsan intan waa waaweynka laakiin midkiiba de intaa oo shay baa kasii hooseysa moogta inta waa waaweynka saddexdaasa waa waaweyn laakiin kaasaa ugu soo marka imika kan waan dhamaystirnay kan lifetime-kana waan soo dhamaystirnay keygiina waan soo identify garaynay in keliya waxaa noo dhiman access listiga iyo crypto mapka iyo imika kaas waan imika galayna dilada imika iyo kaas saddexdaasaan soo dhamaystirnay IPsec tan galayna hadda okay crypto IPsec calaan iska soo diyaarsan IPsec transform set waxaan odhanaynaa hub transform kadib wakaas maxaan soo isticmaalay markii hore MD5 baan usoo isticmaalay asaga encryption soo maahay MD5 keenaan qaadanayna MD5 hajmaag daashe markaas enter taasaan iska galayna because intaa kale waxaa kale uma sii baahna enter ma garat okay marka wuxuu leeyahay isaga laftigiisu mode tunnel buu leeyahay mode baan odhanaynaa tunnel mode markaa tiray modeka transform iyo tunnel ayuu leeyahay waxaan odhanaynaa waa qaabka wuxu transport garayna backetka u dirayo marka waxaan odhanaynaa tunnel IPsec-giina saas ayaan kusoo dhaafnay IPsec-tiina waan soo dhamaynay maxaa inoo dhiman crypto map iyo access listigaan ku horeynaysa waxaan leenahay access list extended iska dhee ama access list 100 permit 10.0.0.0 ama permit host yani lana permit maxay access saad ujeedaan permit IP yes ilan waa kan permit IP waa internet protocol permit IP garanaysaa any baa host baan odhan karnaa iyo source ama sourcegaan ayaan sheegaynaa waxaan odhanaynaa IP ama IP addresska ayaan sheegaynaa ama host ayaan odhanaynaa marka let's go with host maanta ka kalaan odhanaynaa IP address host 10.0.0.0.1 waa isaga moogta 0. okay inagama baahna .1 soo ma aha waxa kaloo u ogolaataa ood hostiga kala siisaa egday waxaad permit hostiga waxaad u ogolaataa 10.0.0.0 oo hostigan oo kan oo haabka ah waxaad u ogolaataa hostiga kale yaa 10.0.0.0.2 may garatay marka uma baahnin tooska iyo ma garanaysaa DCP iyo log iyo midna weyna baanin inta ayaan odhanaynaa good marka maxaa inoo sii dhiman crypto marka crypto haddaad tidaahdid kan maxaa la dhaha waxaa sorry waxaa inoo dhiman ma garanaysaa kaasun baa imka inoo dhiman
لأن crypto map ما درتاي إن هالكان كقرينا فاينل سنة crypto map and okay CCNP so سمعنا هنا CCNP ISACAM crypto CCNP ISACAM authorization وبان crypto CCNP crypto map okay CCNP والله سهلة 100 kaas marka muxuu yahay 100 waa 100 kii aan ku soo specify gareynay policy ugu horeeyay waa 100 kii policy ugu horeeyay markaan soo enable gareynay markaan soo enable gareynay 100 kii priority ahaa weeyaan waxaad crypto map because waa tii aan soo nidhibay way ururisaa soo maahayn wataa nidhi way ururisaa marka crypto map CCNP 100 كدينا IPsec لأن IPsec ما دام نسمعها إنه ISACAM تاسو قرأنا IPsec ISACAM كدينا dynamic profile بيننا مربنا انت ريان لنا هاي مرة حكولي note this new I like to see really this one هذا يعني شو على مرة حكولي هاي this one the note the new crypto map will remain disabled until appear hey and a valid access list have been configured marka halkan waxa ku jira access listigii aan ku soo sameeyay inaan gelino marka maxaa oranaynaa match waa sidii ma garanaysaa match hey address marka match address marka tiraadid IP address ka muxuu ahaa access listigeena numberkii match gareynayay yani leeyahay access list 100 waa soo maahayn wakaas access list 100 soo maahayn 100 كاسن قليل access لوان أبي match 100 then enter option كلا مال كديم حاضر أنا سا option كلا تيرا أبي نيساوي حالا كشي كرا يتصير ده set تاي وين أو set داس وما هو set ها transform هل كان كا set أبنا ده أي ترى حالا سا set transform set transform set مرة تلاقي محوك سنة يا إن hub وهاب كي هذا ترانسفور كي نيوكي وحن ترانسفور سد مركز ده وكي هاب كايان سو قال إنه موكي هاب ترانسفورم هاب كنا انتر بعد هنا إن حكى له ولي يلا ست هذانا أي أوكي ست هذانا بير هذا وين ست كم بير بير ما أعرفه أو 10.0.0.2 أدنى إنتر that's it on the masterنا one دمايسترنا شنطيبه وانسو دمايسترنا لكن إذا شقينا إن كلا نوجان مركا كسرنا ده أنا محاولة إننا شوران مقارنة إسا S crypto sorry S محاولة إننا crypto أما IPsec أصلاً لنا IPsec kalau nggak sudah di sini IPsec wakas محاولة كوفي قرينا محاولة crypto IPsec security association lifetime كوانتاس crypto IPsec transform set hub transform أو MD5 crypto map أو 100 IPsec ISACAM ديا crypto set peer key أو 12 يعني neighbor key أو spoga يسا transform set transform كي سو سيراجي hub transform هي match IP address انت أسوقها محا هذا ندهنا IPsec crypto تيكله crypto ده نيكال نوات محا ندي crypto policy كجوا 100 in encryption كجوا 3DS in مقارنة سوا MD5 مقارنة سهاشكو MD5 كوا هالكاسن كرهدين هنا MD5 استعماله سماه IPsec وانا اسمه نقران مقارنة يسا in security association كlifetime كيس وكاس sorry أوتي هالكنا جبنا IPsec yes in policy جوا كان in مقارنة سا in encryption key
hash key authentication key pre-shared key aan soo gelinay defi helmi waa group 2 aan soo gelinay intaas wakaas marka intanina waxa weeyaan intii kale crypto ISACAM CCNP oo ilan waa key aan soo define garaynay soo ma jeedaan iyo crypto IPsec security association lifetime key aan inta ka dhignay iyo ISACAM key ma garanaysaa crypto IPsec transform set hab transformka oo kan ma garatay I mean waa crypto key kale crypto gida oo mapkay weeyaan CCNP bear ma garanaysaa crypto map CCNP ISACAM set pair key transform key iyo access listing haddaan idhaahno halkan show access listina show access list na kan inuu define garanaya oo ah 10 ka qaatay oo marka intan waan dhamaystirnay marka inaan kani kale kiisa ku celino rabaa oo ma garanaysaa aan prepare kalena aan spogan baan u configure gareynaa marka dhowr jeer inaad daawataan mooyaan hal mar iyo laba iyo saddex iyo midna laguma kala baranayo mood marka maxaan odhanayaa crypto kan magalas waan dadejini sababtoo ah waqti badan ayuu inaga cunay marka waxa weeyaan waa daawanaysaa laakiin waa crypto okay crypto ISACAM policy 100 midna ogaada waa inay ismatch gareeyaan waxa aad ka shaqeynaysaan oo dhan waa inay ismatch gareeyaan isla socdaan ma garatay okay crypto okay yeah authentication pre-shared key encryption 3DS garanaysa group 2 hash kuna muxuu ahaa MD5 lifetime kana maxaa ka dhignaa lifetime kasana ahayn dib loo baahay maga waxaa odhanay na garanaysaa crypto ISACAM security association no ISACAM ma ahayn muxuu ahaa IPsec waxa laga yaabaa inaad leedahay wada IPsec ayuu ahaa leedahay crypto ISACAM IPsec lifetime ku saas u ahaa second disk ayaan qaadanaynay kana 100 baan siinayna sama ayo lifetime ka qaadanayna 120 sama eg 100 baan siinayna 120 ka baan siinayna markii kale 200 baan siinayna okay marka inta sameeyno shantii saahay waan sameeynay marka maxaa raacayna crypto ISACAM key waan define gareynaa key oo ahaa key oo ahaa 0 muxuu ahaa CCNP and address ka oo la dhanso xawatan 0.0 kan doorka waa maxay waa .1 sama ah shan kala male inta baan leenahay allahumma salli ala sayyidina muhammad aan ka dhamaystiray maxaa odhanaynaa maxaa inoo dhiman oo kale okay kii waan sheegnay ISACAM waan sheegnay crypto magara IPsec ayaa noo aray transform set maxaan odhanaynaa marka spook spook transform kan magaranaysa sha MD5 sham ama ase maxaa hadana odhanaynaa noorku muxuu ahaa taanal baan uga dhignay muxuu ahaa ma daragtay noorkuna waa taanal samahay dasad IPsec ina saasuu naga dhamaaday kiigii baan kasoo halkan eeg tan toos baan wada dhamaystirnay kiigana waan define gareynay IPsec waan sheegnay crypto map waa inoo soo socdaa access listiga lifetime kina waan sheegnay ma garanaysaa markaa crypto map iyo IPsec waan sheegnay saddex waan sheegnay taa kaliya inoo dhiman labadaas inoo dhiman access listiga iyo waxa inoo dhiman warasa crypto map
marka access mapka crypto map inoo samee access list ga wata sameynayna haleenahay access list 100 ma garatay permit id marka waxaan odhanaynaa marka hore host baan isticmaalnaa hostigan iska dhaafayna ip addresska caadigan isticmaalnaa 10.0.0.2 iyana allow garay leena soo ma to maxaa la garay marka wildcard inkiina weydiini wildcard source wildcard maartido 0.0.0.0 ama 255 iska dhe ma garatay enter iska dhe 255 oh yes 255 kali maxaa kale mar haddana weydiina IP addresska kale ee saaxiibkiisa ilaa kan isaga wahay I was 1.2.2.10.0.0.10.0.0.2 magaranaysa wildcardkiisu ka yahay waxayna weydiinaa kii kale ee ah neighborkiisa Soomaan oo isagana oo ahaa magaranaysa 0.255 magaranaysa access list marka kana saasan leenahay marka xoreena crypto inka maxaa soo sameynaa marka tan access list inoo soo sameynaa crypto map kaliya inoo dhiman waayo like crypto map okay word kuna muxuu ahaa ccnp mapkuna muxuu ahaa ccnp isakan marka crypto map marka ccnp numberkii oo ah 100 oo priority ga ahaa ipsec isakan interval marka maxaa odhanaa match address 10.0.0.10.0.0 ma garanaysa muxuu ahaa 1 soo mahayn inter sorry match address inaan calaamada isticmaal lahayd 100 because access sigu naga rabo id address nagama rabo maxaa odhanaa set maxay ahayd peer soo maha 10.0.0.1 enter haddana set kale oo ah transform set haddana muxuu ahaa marka spoke transform halka maaragtay walaalayaal uu leeyahay spoke transformkaasi haddii uuna halkan sare spoke transform uuna ahayn inagama yeeleen halkii ibsec markan ku jirnay halkan markaan ibsec isticmaalaynay ibsec markaan isticmaalaynay spoke transformkaasi hadduu far yar noqdo kana far waaweyn aad ka dhigto capital aad ka dhigto inagama qaadanayo sidaas waa inay isku leekaadaan yahay waa sax marka muxuu yahay interface-yada kuwani marka interface serial 0/0 waana interface ka gashay waana interface serial 0/0 wayna tiraadid crypto si aad u enable garaysid crypto map ccnp haddii ay shaqeynayso wuxuu ku odhanayaa in ma garanaysaa hadduu shaqeynayo wuxuu ku odhanayaa crypto isacamp 6 on isacamp is on marka intaas ugu muhiimsan isacamp is on already packet buu diray waka packet buu diray oo ma garanaysaa received packet but not an ibsec packet macnaheedu waxa weeye wuxuu muuqataa inuu inoo shaqeynayo sababtoo ah haddii ma garanaysaa ka kale weli maynaan 10 on kama inaan dhigin ma garatay 10 on ilan destinationkii waa kan ma garatay source addresskii waa kan marka kama inaan dhigin ma garanaysaa weli ka kale 10 on ma inaan tanin garin waa kan kanaan galaynaa xaaleena interface isaguna waa serial 0 kale oo noqdo warax waana waa shaba way badan tahay wayna dib badan tahay baashu noqdo
wa serial 0/0 isaga laftigiisa serial 0/0 maxaa dhaynaa marka crypto isaka crypto map okay crypto map cc mp bismillah ar-rahman ar-rahim wakaas wagaraysa isacamp is on marka waxa intaan wax kala sameeyno waxaa dhaynaa okay neighbor adjacency okay hadana show crypto isacamp in laba command oo khatar ah jira show crypto isacamp sa waa kuwaas already way isku direen way magaranaysaa waa active magaranaysaa QEM kaas ayaad rabtaa kana waa rabtaa kana aan idhaahno show crypto isacamp okay yeah no delete the you so marka walaalayaal waxaan sameynaynaa waa way shaqeynaysaa marka waxaan sameynaynaa waxaan odhanaynaa crypto laba command ayaa jira halkan aan ku verify gareyn halkan ayna igu qorayaa number 7 laba command oo ah crypto waa show commands ya show commands ya ويا نيشرية مركا حالا crypto محي هاي show crypto isacamp taas ayaa la idhaa marka waa inaad QEM ka aragto iyo inaad active ka aragto labadaas aad ayaad u baahan tahay marka commandiguna waa maxay halkan aan soo qaadayaa copy ayaan soo qaadayaa taasi halka ma garanaysaa kaas commandiga kale oo isaguna ah ma garanaysaa show crypto IPsec show crypto IPsec SA isagana show crypto IPsec SA isagana commandigaas wuxuu ku siinayaa peerka wuxuu ku siinayaa baakadada oo encrypted ka ah baakadada oo decrypted laga dhigay waa 720 kuwa la furay kuwa kalena waa 6 magara 920 baakadada la verify gareeyay waa 920 ma garatay marka everything is fine mid kale waxaan ka rabnaa show crypto isacamp SA haddaad tirahdid waa ma garanaysaa neighborkii baa dhisan oo waa neighborkii ma garanaysaa waa kan neighbor hadduu neighbor halkaa jirin 0 buu kuu qorayaa moogtay waxbaa ka meeraysa wuxuu ku odhanayaa something like mismatch or something like not mismatch actually waan ilowsanahay laakiin QMIDLE waa inaad heshaa mar walba waa inaad heshaa sourciguna spoke1kuna waa inuu noqdaa neighborkiisa destinationkuna waa inuu noqdaa isaga oo spoke1ka tusaale ahaan sourciga kani waa inuu neighborkiisa noqdaa neighborka kanina waa inuu sourciga kan numberkii IP addresska kani waa inuu noqdaa sourciga IP addresska kani waa inuu noqdaa neighbor ma garanaysaa kankiisa ama hubka kiisa destination IP addresska kiisana waa inuu noqdaa kankiisa waa isweydaar
ولا يسوي دارني ما يقرأته مركا وشو عادي iyo kan kale muxuu ahaa show magaranaysa marka waa sidaas marka labadaas aad u baahan tahay ib sec man la okay show crypto isecant sa kanina show crypto marka kani waa maxay show ib sec sa haye asan isagan u baahanahay command-ga kalena waan u baahanahay waa kaas labada command ma garatay marka niyo tutorial aad u fara badan weeyaan ma moodayn dasalan inuu dheeraanayo waqtiga inuu sidan waqti badan u cunayo xitaa ma moodaynin be laakiin waa inala dheeraaday hase ahaato inaad ku enjoy garaysaan iyaan ma garanaysaa in idin rajeynaya dee ku celceliya oo daawada oo videoyo kala daawada ma garatay oo videoyo kala daawada marka waxa weey waa kaas marka iminka marka dhahdo eegday marka dhah show crypto ib sec markaan idhaahdo sa ga ka iloobina wax uu noo sheegaya localku identificationku addressku inuu yahay ma garanaysaa in 10.0.0.2 oo ah ma garanaysaa in isaga ah isbokwana ip address ma garanaysaa maskigiisuna yahay remote identification ama kii ma garanaysaa remote waa hubka moogta ilemka isbokwan baa ku jirnay ip addresskiisu waa kaas isu ma garanaysaa remote-ka ma garanaysaa in waana kana ip addresskiisu oo broadcast wada ah in current peer oo peerka la yahay waxa weeye ma garanaysaa waa 10.0.0.1 waa sax ilan iminka isbokwan baa ku jirnaa tuubu wata moogta waa kana ip addresskiisu marka in peerka kuu la yahay oo la peer garayna waa ka portiga ay ku wada shaqeynayaan waa portiga waa port 500 in permit flagskuna waa flagyadaas baakadadii marka inta baakadee soo martay ee la diray inta la diray oo ma garanaysaa oo kan oo peerka oo 1.0.0 10.0.0.1 oo soo diray waa 230 baakadada oo kan oo isbokwanaya oo furay oo arkay packets encrypted baakadada oo diray isaguna waa 230 baakadada encrypted ka ahaa ee ninkan soo galay waa 230 ma garanaysaa ee isbokwan soo galay baakadada encrypted kihi waa 230 intii uu kugu celiyay baakadada oo digestigi waa intaas ma garatay baakadada oo furay waa 430 baakadada oo furay waa isku mid ka 430 baakadada verify-ga oo verify garay waa 430 marka information-ka quruxda badan buu ku siinayaa show crypto ipsec sa gaas ma garatay haddaad tidhaahdo show oo command-gii kala kan inagu soo qoray aan isticmaalo in show crypto isecant sa way midna waa show crypto ipsec marka ipsec waa tan soo aragnay show crypto isecant sa ayaan isagana ismarinay show crypto isecant sa isaguna wuxuu ina siinayaa neighbor relationship ka dhisan ayuu ina siinayaa ay garatay marka waa laba command aad muhiim ah labadaas bayna runtii VPN ku leedahay waana cashir dheer waa inagu dheeraaday aad iyo aad baa u mahadsantiin youtube-kana waa inii soo gelin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo saa u dhaqsaa barnaamijkan soo gelinaya imika waan record garaynayaa caawa ay tahay bisha 12 bisha 2013 aan isku soo duceyno aad iyo aad baa u mahadsantiin daawasho wacan oo wanaagsan walaalayaal daawasho